anigu xamdi ahaan haddaan idii ku daro waxaan ka soo jeedaa beelaha la yidhaahdo waa la haybsooca ayaan ka soo jeedaa wiil bashaakna dhex marta wiilkaa muddo badan baanu isnaqaanay waanu isku wanaagsanayn kadib habeenada ka mida ayuu i weydiiyey qabiilkeed ka soo jeedaa ana kaman xishoono waan u sheegay waxaan ku idhi waxaan ahay gabadh gabooyaa baan ahay yacnow kaana maa si hooyadii oo dhimatay loo soo sheegay ayuu u naxa waan weydiiyey waayo baan ku idhi aad maxaa la yidhahdaa sidan oo dhan isugu bedesha wuxuu igu idhi waa reer xun waa reer caynkana waa reer sidana haba sheeganin baabuu soo istaagay waxay ta umaba qalintidba ayaabuu soo istaagay waayo baan ku idhi waad ka qurux badan tahay buu igu idhi waayo baan ku idhi ma wax lagugu sheegay dad foolxun baan ku idhi horta anigu gabadh isaaqa baan ahay nin ma dhibaana waan dhaxay waxaan kaliyaatay dadweynahan ka rabaa ma dhibaanka iyo isaaqa isku diin maanayan kala diin may wataan weliba qoyskaan ka dhashtay aabbahay ifkaan ugu jeclaa way maxarimay ilama hadlo ima rabo dee waxaan leeyahay dadweynaha aabbayna waan jeclaa ninkaygana waan rabaa se diinta labadan qof kala fogeysay dadweynaha lai weydiiyo bal nooga waran dhibaatooyinka kaa soo gaaray haybsooca iyo bal wuxuu aabbaha kugu maxay waa yasitaan yasayaan ma dhibaan isaaqanu isku mid baan u haystaa farq ay kala duwan bay kala sareeyaan laakiin ma garanayo waayo waa shakhsi Soomaaliya waa nin muslina oo shaadanay diinta Nabi Maxamed haystaa taanigu xagga dhaleecaynta waxaan saarayaa faamigan ka dhashtay waalidka isagu ma awoodo inuu dadkii imika la kaftamo isagana ma aha sababto ee waa bulshada waa khalad waa run laakiin haddii uu bulshadii aanu marnaba la kaftami karin adigu ma jeclaatay inaad bulshadaada aad la kaftami kari weyd walaalay macana waan ku jawaabayaa aabbahay ma waan yasinba gaalna umaan keenin nin muslina shaadanayaanu keenay nin laandheeray qabiil ka soo jeedaanu keenay marka hore uu siinayaba uu siinayay laakiin waxaa tiri dhibaatadii bulshadii aabbaha bay kaga timid bulshadana uma nooliya wax qofka wax wanaagsan aqligiisa iyo naftiisa inay wada kaashadaan haddii calafkaaga uu noqdo amaba sheeko wadaag aad noqotaan inaan ka soo jeedo beelaha imika haddaan ka hadlanay gabooy ma la qaasaa sheekada waan la qaadan lahaa anigu waana jeclay laakiin sababtaa ah in ay waalidkii aanay ku faraxsanayn marka aslan waalidkii meesha aan ku faraxsanayn ma geli farxadaydaanu ma raba ma danaynin hataa inaan ha ahaado inaan isaaqa ha ahaado waalidkii haddaan ku faraxsanayn anna ma doonin in qoys islaama oo ashahaadanaya in la dhisaa ma khalad ba mise waa sax waa sax okay su'aal kale in la dumiyo qoys islaama without reason bila sabab waliba ma sax ma soo khalad صحنا ما قلنا ما لكن وحا قلنا اوكي إير aan dhamaysta hadalkayga nin islaam baan guursaday ashahaadanaya reer baan dhisanaya ubad baan dhaqanaya wala sunnihii rasuulka kaleey salaatu wasalaam aabahay diyaar waxa uu u yahay inuu dumiyo qoyskayga sabab allaale iyo sabab uu ninkan u diidayaana maba jirtaba sababta uu igu diidaya kan maxay tahay waan ka soo horjeedsanaya aabahay waay su'aashu waxay ka taagan tahay Sheekh Maxamed waxay ka taagan tahay waalidkaagu haddii uu ku idhaahdo gabadhaasi ka soo jeeda beelaha gabooy kuma ogoliyo fur miyaad furasaa mise amarka waalidkaaga waa diidaysaa bay su'aashu ka taagan tahay amarka waalidka waa la diidaya amarka waalidka waxna lagama soo qaadayo laakiin anagu waxaanu ka hadlaynaa hadda waxay ahayd aslanba waxani waa duni guurku hadduu waalidkaada kugu yidhaahdo inantan iska daa waa inaad waalidkaa uga tanaasushid meeshay haysatay inantaas way ku saxan tahay baan leeyahay laakiin qodobkan waa laga soo saarayaa yacni xukunkii markasta in la dhaho maaha sidiisu ku soconayaa diinta waxyaalabaa jirta laga soo saaro isagoo sidaas wax u jiro haddana waxyaalabaa jirta laga soo saarayo waxyaalo ka weyn daraaddeed waayo tani waxa weeyaan dee qoys dhan iyo dad dhan oo la yasayo sababtaasaa laga soo reebay walaqad karamnaa bini'aadan buu yidhi waad iga saartay inama almu'miniina alakhwa buu ilaahay yidhi sheekh waad iga saartay oo ma ogtahay walaaltinimo inaan diintii muslimka ku nahay aduu ma aqoonsanin marka wuxuu igaga saaray isagaa imaamkayga isagaa kitaabkii haya isagaa dastuurkii ilaahay igu soo dhiibahaya waxa weeyaan warsal ambiyaadi waa culummada ayaa halkii rasuulka iyo asxaabihii taagan wixii xun oo dhan ee diinteenna ku qaloocan imika beri maalintii dhoweyd gabadha sodohdaa laga hadlayey giddiga masaajidaad ka wada hadasheen
intaasoo boqoloo sannadood aniga tikoor baad igu hayseen diiniyan oon sharci ahayn maalin qura intaad isu soo taagtay mumbarka masaajidka dadka kamaad dhaadhiceen waxaasi khalad bay inagu yihiin dadkaas waa dad muslina waa walaaladeen waxaad arkaysaa hablo soomaaliyeed oo gaala guursatay waa seediga baad leedahay ninka gaalka ee gabadhaa qaba waa ninka inanta waad ku faraxsan tahay anigoo shahaadanaya markaa diintaasi ma diin saxaa mise waa diin qalada ilan diintu waa kitaabkaabu quru ilaahay noo soo dejiyey iyo sunnata rasuul soo mad garan culummadu maxay ka qabtaa ina salaadan kula tukanaya ma ansaxba mise si gooniyana nuu tukada sheekh qoladan kalena waad dhegaysatay adiga laftirkaaga waxaad ka mid tahay qoysaskaasi kala haybta ah ee qaar la hayb soocayo bal nooga waran qisadaada adigu walaaw anigu waxaan gursaday baan ku wiilkii adigu hooyadii baa isku haydirtay waxay waqti walba gabadhan iska fur gabadha midgaanta iska fur gabadha cayd iska fur adigu wiilkii u taariibay waxbay aada ku daalin markuu taariibay uu dhintay inanka markuu dhintay waxaan dhaxalkii uu lahaa maxamed haybeen doonaya maadaama dowladu haysay ayaan rabaa baan annagu dhaxalan ku haynaa ma jirto beraad dawataa maxaa kabadiyay orod maadaama wiilkoogu isaaq yahay amba baylahan laandheeraha sheegtaa way loogu diidaya xaqii amba dhaxalkii waabiye ka helan maxaa loogu diiday waxaa loogu diidayaa de qabiilkan ka dhashay anigu midgaantana maxaa loo siinayaa waxaa ku haddaan maanta siina ba yidhahda berito lo way sii fadays toos buu dastuurka u caddeeyey jamhuuriyadda soomaaliya marka la sharay qodobkiisa 8aad farqadiisa 1aad ta hore waxa ay sheegaysaa in muwaadiniintu ay ku sameeyeen sharciga hortiisa oo waxay tilmaamaysaa inaan muwaadiniinta loo eegin midab dhaqan dhaqaale qabiil iyo wixii la midaba farqadiisa labaadna way reebaysaaba waxay sheegaysaa waxa reeban dhammaan dhaqanada ku salaysan isir abtirsi dhalasho iyo wixii la mida dhammaanteen sheekh iyo shariif waxaynu u nahay yani u garbaduubanahay dhaqan foolxun dhaqankaasu mahmahdiisu waxay ahayd caado la gooyaa cadho allay leedahay caado imise caado qurmoon oo xun baa jirta sideeba waxa la doonaya waxaasoo dhan inay jiraan iyagu weliba iska dhigaya dad mataqaanaa af carbeed waxay ku yidhaahdaan min qataca alcaada cadaawa yani waa dad doonaya xumaantaasu inay sii jirto mataqaanaa waayahay adu gaagaab waxaa tahay nin ethoobiyaana laakiin gabar soomaaliya dhashay dhibaatooyinkaas ay ka cabanayaan soomaalidan nala joogtay imika iga waran dhibaatooyinkan ay ka cabanayaan waan la ogahay aad baan ula tacaadufayaa adiga taasi ma ku qabsatay markaad gabadha doonaysa subxaan allah taa wallahi ilaah baan ka magan galay anigu ina isoo taaban aabbahay oo isagoo aan ahayn anigu soomaali baan ahaye laakiin aabbahay oo dee xabashnimada igu dhalay ayaanay taas dareemin oo gabar Soomaaliyeed guursaday oo waliba isagu ka guursaday gabar Soomaaliyeed haddaba inagu dadkeenani minority ma aha oo calaamadaha minority-ga ma soo galaan minority-ga marka la leeyahay waa bulsho ku dhex nool bulsho kale oo laga tiro badan yahay oo dadka ka aragti duwan yacni ka muuqaal duwan kani waa kula muuqaal waa kula aragti abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell macmil ma ogtahay shirkadda Dahab Shell ay ku soo kordhisay application-ka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel waliba Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda haddaba sidee ayuu u shaqeynayaa application-ka Dahab Plus Google App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga kadibna raadi Dahab Plus marka uu ku soo dago isdiiwaangeli adiga oo raacaya weydiimaha isdiiwaangelinta ugu horreyn ku qor nambarkaaga Somtel emailkaaga samaysana password kuu gaara ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga eDahab intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira application-ka Dahab Plus adigoo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara xawlaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara akoonkaaga Dahab Shell in ka badan $126 oo caalamka ayaad si toos ah xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa
abka daha blas shirkado iyo shakhsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka daha blas waxaad adeega dahabay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account adeega impesa ee dalka Kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee idahab iyo bangigaaga adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka daha blas adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetka kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba daha blas waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud mar kasta iyo mar kastaba ku isticmaal applicationka daha blas